Assalaamu calaykum. Bartani waa Faa'iido Channel. Fadlan haddaad ku cusubtahay daawade, subscribe dheh. Sheekadeennu maanta waxay ku saabsan tahay ayaa waxaa jiray laba nin oo saaxiib ah, kuwaas oo safar ku marayay meel saxaro ah. Intii ay safarka ku guda jireen ayay murmeen labadii saaxiib. Mid ayaa intuu xanaaqay wejiga ka dharbaaxay kii kale. Kamuu falcelin dharbaaxadii saaxiibkii ku dhuftay ee intuu fadhiistay ayuu dhulka ku qoray, maanta saaxiibkaygii ugu wanaagsanaa ayaa wejiga ka dharbaaxay. Cabbaar markii ay socdeen ee safarkoodii iska sii wateen ayaa waxay ku soo baxeen meel hara ah oo biyo ku jiraan. Markii ay ka cabbeen biyihii kuna maydheen ayaa mid ka mid ku siibtay haradii, kaasi oo ahaa kii wejiga laga dharbaaxay. Kii kale oo ag taagnaa ayaa markiiba intuu ka soo cararay ka soo saaray saaxiibkii kana soo badbaadiyey biyihii. Intaa uu dhaqaaqay ayaa wuxuu dhagax ku dul qoray, maanta saaxiibkaygii ugu wanaagsanaa ayuu badbaadiyey. Wiilkii dharbaaxay saaxiibkii ayaa intuu ku soo dhaqaaqay weydiiyey, markii hore aan ku dharbaaxay waxaad ku dul qortay ciidda, iminkana waxaad ku qortay dhagax, maxaad uga jeedaa? Wiilkii ayaa ku jawaabay, marka uu qof ina xumeeyo aynu ku dul qorno ciidda si ay dabayluhu masaxaan, markuu qof ina wanaajiyana aynu ku dul qorno dhagxaanta si aanay dabayluhu masaxin. Daawade, dulucda sheekada ayaa ah mar kastoo qof qalad kaa galo inaad iska cafido, mar kastana aad wanaagga doorato. Maxaa yeelay dadku way kugu qaldamayaan marmarka qaar, laakiin waxa wanaagsan inaad mar kastaba wanaagga eegto oo dhanka wanaagga mar kastaba aad ka raacdo. Maqaldamana waa Ilaahay.